waxaan isleeyahay turjumaadu marka koobaad waa jidka dimuqraadiyadeynta aqoonta afafka qalaad ee u badan afafka reer Yurub ama afafkii gumaystaha qarnigii ugu dambeeyay ugu yaraan waxay noqdeen afaf kootaysta ama keli haysta aqoonta dabadeetana dunida la gumaystay ee aynu ka mid nahay afafka lagaga hadlo dadka lihi waxay u maleeyeen in afka qalaadi uu u dhigmo aqoon sidiisa taasoo soo kicisay cali suugle markuu lahaa af qalaad aqoontu miya oo isagoo ka turjumayay dhinaca kale oo labada dhinacba waa xaq jiro qolo afka qalaad aqoon mooda iyo qolo dayrisa labaduba kootaynta aqoonta ee afafka qalaadi kootaysteen siyaabaha lagaga furfuri karo ee aqoonta lagu dimuqraadiyadeyn karo tuulo kasta loo gaarsiin karo isla markaana cid kasta rag iyo dumar da kasta oo farta akhriyi karta lagu gaarsiin kara ayay ka mid tahay turjumaadu qoraagii reer Kenya Ngugi wa Thiong'o buugiisu u dambeeyay oo qoray wuxuu kaga hadlayay turjumaada wuxuuna u bixiyay turjumaadu inay tahay afafka the language of the languages afafku afkay ku wada hadlaan inagu af baan ku wada hadalnaa laakiin afafku waxay ku wada hadlaan turjumaada oo kala dab qaada laba af laba dhaqan laba waayo laba taariikhood laba sooyaal mar labaadka turjumaadu waxay xoreysaa maanka waayo waxay qofka afkan leh afka wax loo soo turjumay leh u qirtaa oo marag uga noqotaa in afkiisu uu la qiimi yahay afafka kale uu qaadi karo inta afka kale qaadi karo nin dhigta jaamacadda Hargeysa ayaa ii sheegay in macallin u dhiga cilmiga siyaasadda ama culumta siyaasaddu uu ugu daray liiska akhriska buugga Karl Marx ee The Communist Manifesto turjumaadiisa af Soomaaliga maadaama uu af Soomaali diyaar ku yahay uu ka akhrista af Soomaaliga si aynu u fahanno Marx oo maadadeena kamid turjumaada af Soomaaliga akhrista markuu warka ay sheegay habeenka si fiican baan u seexday waayo waxay ahayd ujeedada ugu yar ee aan filayay inaan kale yahay mashruuca turjumaada ee aan ku dhex jiro oo ugu yaraan in ardayga Soomaaliga ee jaamacad ama dugsi sare ku jira uu maadooyinka dhaqanka fikirka iyo indheergaradnimada la xiriira ee horsocodka waliba inuu ku helo afkiisa taas baa aniga ujeedadoodu ahayd tusaalaha aan idin sheegayna wuxuu idareensiiyay midha in aan ku saxnaa geediga aan bilaabay afafka Afrika oo Keenan uu ka mid yahay Soomaaligu waxa la isla balansaday 2000 bayaan la yiraahdo bayaanka Asmara Declaration waxa la isla balansaday in afafka Afrika la soo xerageliyo afafka Afrika ma xeragashano aqoonta kuma jiraano waayaha aqoon dhalinta iyo aqoon gudbinta midna kuma jiraan bal in halka la keeno laga soo xoreeyo in afafka Afrika lagu koobo in dadku ay isku fahmaan ama weelka dhiib iyo hoowa kane arintu inay dhaafto oo si uu xasilo afku oo u noqdo agab qaadi karaya aqoon xoran karaya maanka gudbin karaya fikir in afku uu soo dhaafo edega oo uu gaaro aqoonta taas baa ahayd mid la isku balansaday madhaana la ilowsiiyay daraasadaha cilmiga aynu hubno ee sugan waxa kamid ardayga sida heerka waxbarashadiisa iyo afka uu wax ku barto xiriir toos ah ka dhaxeeya afka wax ku barta markasta oo uu dhow yahay ka gurigooda lagaga hadlo waxa badan heer inuu fahmo maadada uu dhiganayo ama waxbarashadiisa marka laba waxba muhiim laba qodob baa muhiim waxbarasho iyo farbarasho oo in
in tacliin la dhigto oo iskuul loo kalaho oo jaamacad la aado iyo in farta la dhigo lana fahmo mid dhigan literacy-ga ama farbarashada way dhaafsiisan tahay in far qoran oo kaliya la fahmo way dhaafsiisan tahay waxay gaarsiisan tahay in maanku garto farta qoran ujeedada ay leedahay hadii kale waa mid madow badan Allah ku yaqaan hadii kale waa mid madow badan Allah ku yaqaana waxaan rabaa inaan hadalkayga ku koobo in af muhiimadda turjumaadu leedahay waxa kamid ah oo ugu muhiimsan bamdha in waxa uu aqoonyahanka reer Gaana Kwesi Braah uu ku magacaabay aqoomaynta afka intellectualization of the language afka in la aqoomeeyo oo la geedigeliyo si uu qaado afku aqoonta uu qaado erebixinada af Soomaaliga tusaale hadaan idinka siiyo buuga koobaad waxa la yiraahdaa jiraha cusub eraygan turjumaynay wuxuu ahaa the new being mar wuxuu noqon karayaa qof noole laakiin waxaan dooranay jire sababtoo ah waxa ku jira dhadhansi taban negative connotation baa ku jira erayga dhadhansi taban baa ku jira afka marka eray bixintu xasisho ee ay saldhigto ee ay hiddo qoran yeelato waxa sahlanaya oo fududaanaya in qofku soo helo erayo ku jira afkiisa oo la adeegsado oo u buuxiyo halka erayga qalaadi ugu jiro afka qalaad dadaan dib baan u jaleecay sugaanta oo ah weelka ugu weynaan wax ku qaadan jirnay laakiin si ay tahay inaanay noqonin oo qoraalka inuu noqdo weeyaan weelka ugu weynaan wax ku qaadano aqoonta hase yeeshee kaas baa imka si kumeel gaar ah inoogu ahaaye hadraawi baa maansa ku darsaday jire wuu ilduufaa anna waxaaba rabay ka ilduufaya wax hogseegaya ayaaba rabayba turjumaadu waxay qofka ku akhrisanaya afkiisa siisaa isbixin in qofku isbixiyo agency baa afka qalaad lagu dhahaayo waxa weeyaan qofku inuu isbixiyo waxay ka dhigan tahay dad meel lama degaana toddobaad lagu soo oodo inaad madagta dab ka dhalsan kartid dhacaran kartid oo dhirta biyo ka tuujin kartid ugaarsan kartid hadii meesha noola ku nooliyay kala aad cuni kartaa toddobaad kadib marka lagu yimaado adoo naftu kugu jirto ladii lagu soo gaari karo waad isbixisay qofka afkiisa wax ku akhrisanaya ee ku fakaraya ee ku dul dhisaya raayigiisuna wuu isbixin karayaa xuquuqdiisu dhacsan karayaa wuu xoroobi karayaa wuxuuna qayb ka noqon karayaa mashruuca ugugi watiyango buugisa something thorn and new ee 2009 uu bixiyay restoration project ama mashruuca soo doogista inuu soo doogo qofku waayo af qalaad marka aqoontu ku taalo hadii afkeena Soomaaliga ah ama afka Afrikaanka ah lagu soo raro oo lagu soo xero geliyo waxa suuragal ah in la soo doogo oo la soo awaal baxa suuragal ah ugu dambeynta waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo afka Soomaaliga marka aad ku akhriyaysid mowduucyo kala duwan oo turjuman waliba inaad afka Soomaaliga wax turjuman ku akhridaa waxay dhashaa inaad wax nafla ku cirisid af Soomaaliga markastoo mowduuca aad akhriyaysaa uu ku qoran yahay afkaaga mowduucyo kala duwan inay ku qoran yihiin afkaaga waxa suuragal ah inaad afkaaga ku cirisid waxyaabo kala duwan tusaale nool waxa ah buuga aynu turjunay labadan buugba tixraacyada ugu badan ee ku yaala dhamaantood waxay ku yaalaan af Faransiis waayo qoraaga qoray af Faransiis buu si fiican u yaqaanayo oo uu xiganaya waxa dhici karta buug aad garanaysid oo akhriday laakiin aad ku akhriday af Carabi ama af Ingiriisi inuu qoraagu af Faransiis ku turjumanayo ka Faransiiska ku qoran ama ku turjuman uu xiganayo de ujeedada ugu yaraan rabnaa waxa weeyaan in biri ka maalin buugaga aad xiganayso uu ka mid noqdo mid Soomaali ku turjumani aad baad u mahadsantahay